waxaan naloo sheegay inaad adigu ka soo baxday guriga oo aad aragtay neefka ay isuguna timaadeen waxaas ubadda bini'aadanka leh qofka marka waxaad nooga warbixisaa bal sida wuxuu dhaceen iyo sida dhaawac orgacan soo gaaray anigoo guriga hurda ayaan waxaan maqlay taahaas oo ahaa gurigayaga hortiisa dabeedna taahi markii aan maqlay nin nagu xiga oo soolana abaan isiri isagii ayaa xanuunsanaya dabeedna waan u baxo waxaan isiri odayga xanuunsanaya bal eeg markii aan soo baxay odaygii waan arki waayey waxaan ku soo baxay nin kale oo aanan garanayn oo guriga hortiisa laakiin taagan markii aan ku soo baxay ninkii usaa ii eegay wuu dhaqaaqo saasoo kale ii dhaafay ana gurigii ayaan dib ugu noqday in yar haddaan joogayna sanqadhi baan maqlay riyaa haddii aan maqlayna waxaan isiri riyuu laftooda iyaga isdilaya in yar markii aan yara dhagaystay sanqadhi baa sii badatay aniga oo fadhiistay oo isla sanqadhi dhagayso baa riyii ka midii cida markaa cideedii waxaan arkay inay xerada ka ciyay inay dabadda ka ciyayso dabeedna waan soo baxay anigoo ordaya albaabkii markii aan saa u furay buu bahalkiina ka soo booday xerada marka uu ka soo booday wuu cararay gurigaa nusbaloodhkeena guxiga hortiisa markuu maraayay ayuu bahalkii istaagay markuu istaagay aniguna xerada aan igu gudbanayd labadaa jeeni ee hore intuu saa dhulka uga qaaday buu labada dambe isku taagay saasoo kale ii soo eegay sidii wax qooraansanaya markuu ii arkuu iga ilsugtay bahalkii dib buu iigu soo cararay bahalkii markuu dib iigu soo cararay dhagax ayaan gurtay waan shiiday waan qayliyey cid ii soo baxdayna ma lahayn kabacdi wuu yara cararay halkaa markuu maraayay buu istaagay dabeedna dhagax baan haddana sii gurto waxaan sir wuu kugu soo noqon doonaa wuu cararo bartaas buu ka wareegay saas bay ahayd bahalkaasi kolley waraabo un ka weyne qiyaasta markaan qiyaaso waraabo un kolley wuu ka weyne markuu foorsado dee wuu ka weynaa waraabe markuu saa isu taagana dee dherarka waxba igamuu yarayn waxba igamuu gaabnayna qof wuu leekaa markuu saa isu taagay labada jeenu uu saa ula toosay qof wuu leekaa marka dhibaatada soo gaadhay neefkaagan iyo dhaawacan aynu ku arkayno way ka duwadan yihiin calaamadihii hore ee xaafadda ay hore uga dhici jirtay iyadoo aynu horeba u arki jirnay xoolo xaafadda ka mida oo xerada inta loogu dhaco lagala baxo oo la qasho iyadoo qaar ka mida ayada inta loogu tago la qasho iyadoo aynu arki jirnay qaar inta lagu qasho xaafadda dhexdeeda la kala jeexo haragga laga bixiyo qaybna reerka looga tago qaarna la qasho adiga kaagan maxaad ku cadaynaysaa inuu yahay sida naloo sheegay ama warbixinta saakaan xaafado badan ka alle uuna yahay neefkii lixaad ee iminka calaamadahan xididka halbowlaha la gooyay ee laga shaqay dhiiggii inuu yahay inaan waraabe ahayn oo subadda bini'aadanka lahaa maxaad ka dareemi kartaa waxaan ku dareemayaa horta qaar horena way jireen raxmina waa iga mid intaa maxaan ku dhahdaayay dhibaatada soo gaadhay waa sidaas qaar horena way jireen qaar hore badanna way jireen adiguna xalay aragtida aad aragtay marka bahalkiina arkay neefkaygiina waa taa dhibaatada soo gaadhay waxaan bahalka noocan adigu aad aragtay ma aragtay bahal u eg oo noociisa ah oo bahalada waddanka ku noola may hore uma arag raxmo weeyaan raxmana waxay ka mid tahay sida aynu ognahay dadka iyaduna ay ka soo gaadhay dhibaatada xoolaleeda ah ee xaafadda ku haysta Oktoobar marka iyadana waxa soo gaadhay sidoo kale xoolo ay haystaan baa waxa soo gaadhay dhibaatada neefkan calaamadihiisu ka muuqdaan oo 4 neef oo iyagana xirada ugu jiray ayaa calaamadan oo kale ka muuqata lagana gooyay xididka halbowlaha qanjirka daanka hoostiisa mara waxaana la gooyay xididka weynaatan lariga ah ee dhuunta ku jira oo bidixda isku dhinac maanay calaamad ka taala raxmo waxayna su'aalayna bal sifahan iyaduna ay sidayna uga warbixiso neefkeeda laxda ah ee lagu arkay calaamadaha xididka go'an ee aynu aaminsanay in dhiiggii laga jiray wax dhiigan aynu ka weynay markaynu isku daynay بسم الله ما أقول وحرد لحظة أرجع كنت هو يبقى حرسني هو يدي وانجر هو يدي واحد لحظة نوافق وانجر لحظة يبقى ساق لحظة يبقى يمشي والله قلا أنا كمان أريد ما أنا أعرف هي الباب كاس يعني قيس الله لحظة مسافر بلغة سان هي كده من هندرا بدي هورا عتكابة كحدنا وبرجي هورا وانجر مركو قفل كي وين هندرا بدي سر كروي يقارجي فريق كعوصار أبو تيري الباب بس كنا كعوصار كده بقول يقول تيري وكتيري لحدي أرجعي يريدنا حرق ويقاستي لحدي بلا صوب حركة صوب برتاح ثابت برتاح كدلولي لو بعد كنا برتو أقول بنما كساعد كصدر إذا بعد قاعد وانجر ما كان دبق علينا ما عرقنا لحدا أركع شقنا كان وانجر كذا بس كسر بس كصوت هل كي كدلوشي مركان لحدا هل كان أرجع كاي من كورب كدلوا كلا حول المريض مريض كابد وحكلو دبعتنا ميل كلنا كما قلنا أنت سبت وسأنا سبعدك وكرنا نقصر نقصر ما عرفت ريات كيس صبحي على عشاء صلح على عشاء بربلو كدك على عشاء بس هو أنت صلح
ساسا روباد ساسا نقول tani waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ka dhaca xaafadda Oktoobar ee inta badan soo gaadha dadka shacabka ee xoololeyda taas oo ay hore u qabeen in xoolaha u daaqtaga ayda loo geysto dhibaatooyin ay ka mid yihiin in xoolaha marka caruurta loo geeyo ama ay dumarku raacaan in neef walba neefka uu ka qiimo roon yahay lagala hado ayda laguna qasho laguna karsado marka labaad waxa soo gaari jiray in habeenkii markay soo xareeyaan si kooban ay xiradooda u geliyaan ay maxay haytay xirada neefka inta lagala baxo la qalo oo haragga laga bixiyo neefka la qaybiyo si xaq oo aad moodo in lala lahaa qofka neefka ama laba qoys ay qaybsanayeen ka bacdina qayb neefkii inta laba qaybood oo isleeg laga dhigo qaybna reerkii looga tago oo haraggii lagu duubo qaybna uu qaato qofkii khaatureenka ah ay dhibaatada soo gaarsiiyay hadda waxa argagax iyo dhibaato nagu beertay oo aanu haynaa 16 kiis oo ka dhacay xaafadda Oktoobar ilaa iyo muddo isbuuc ah dheer taasi waxay ka mid tahay xoolihii oo inta loogu dhaco xeradii neefkii lagala soo baxayo neef waliba neefka uu ka yar yahay ama uu ka shilis yahay lana goynayo xididka weyn ee halbowlaha ah ee ku yaala luqunta la daloolinayo la goynayo dabeedna si toos ah qaybta bidixda dhiigga looga shaqeeyo dabeedna waxa lagaga tagayaa meel u dhow xerada isaga oo bakhtiya marka la raadiyo wacad kale laga goosan maayo marka la raadiyo waxa lagu sheedarkaysa inuu yahay cag qof bini'aadana cabtiisa amba gacantiisa oo kale okay waxa kale oo dhibaatooyinku ay saameeyeen ay gacanta ku hayaan aragnay waa waqti kulaylaha dumarada caruuraha la seexda daaradaha ama goobaha xaafadaha dhexdooda qof ka mid ah hooyadana ilmaheedii uu ku qabsaday oo uu ka qaaday oo dagaal ka dhexdhacay oo reerku uu ka riday marka waxaynu oran karnaa waa khatar soo kordhay waana dhibaato soo kordhay waana mid nabadgelyada wuxuu dhimaysa saaka waxa noo yimid saldhigga Faarax Cumar waxaan u dirnay riboodka waanu gaarsiinay gurmad bay noogu soo baxeen 16 kiis bay ka qoreen xaafadda Oktoobar oo wada dhibaatadaas waana leefkii lixaad ee isbuuca gudihiisa ka baxa xaafadda xididka halbowlaha la gooyo dhiigga laga jaqo wixii warbixinaha dambe soo ka dhabaaritaan baa socda bilayska wada gudida wada shacabka wada waxaan ka codsanaynaa in dadku ay nabadgelyada ilaashadaan oo balgaarka la cusleeyo xaafadda waxaana mushkilada naga haysata raggii xaafadda joogay ee xaafadda mas'uulka ka ahaa ayaanu baaqu diraynaa inay nagala qayb qaataan nabadgelyada korna loo qaado insha Allah